والله شرم باي wiilkeena inuu yahay aabihii dhalaa sheegay. suu ku ogaaday ma kaala sheegaysay arrintaas? Mar uu iiga sheekeeyey wuxuu dhahay sheeg dagaalkii afar biloodkii markii oo sheeg maxamed laga soo noqday kabacdi afar biloodka oo isdagaalayeen afar biloodka almaas dagaalkii markuu maxamed kadib dhacay oo soo aboowe ee naagta isqabeen marka wuxuu yiri way ii imaatay isagoo dagaalka socdo dagaalka bilaabo rabo waxay dhahday dhalay Cabdicasiis oo wiil baan ku dhalay wiilaan dhalay sheeg saas miyaa wad tagsiga dharka tigada watay lacag uu siiyey way baxday marka xaafadooda aad Madiina tagnaayeen waan soo baxo yiri hal mar ku celi meeshaas maxaa tiri وأوتيمد عبد العزيز سقوا تكسر أطلال صعدان يا إمانة عبد العزيز إمانة يا وحاول ما تحاس كيسة حاس كيس جاي هاد قبل كيه هاد رحوين واي حاس كيس الرحوين هاد هاي حقود جوا مركب عبد العزيز إمانة يا عبد العزيز كل جاي نو تشوقي قولي تقولي له تبكي هو سيسا الفنان شرماركة عبد ناصر شرم بوي قبيل كيس الرسمي ayaa saacadihii ugu dambeeyay mar qora qabsatay baraha bulshada kadib markii eedadii ay timaaday ninkan waxaana ay leedahay wiilkan ma aha beesha majeerteen oo daarood ma aha waa wiil ka soo jeeda beesha hawiye gaar ahaan baadicadde waa la yaqaanaa waa gugundhabe waxaa sidoo kale qabiilkan uu yahay qabiil aan dhumaynin oo la yaqaano oo Soomaaliyeed sida loo yaqaano beesha majeerteen su'aalo badan ayaase ka dhashay maamadan soo raadisay hadda Sharma Boy ee leh eedadii ayaan ahay aabihii ayaan la dhashay wiilkeena wuu naga maqnaa hooyadii way dhimatay iyadoo la kala cararayo ayuu dhashay wiilkan 93 kala cararkaasi markii aan reer hooyadii raadinay hooyadiina ay dhimatay mar waxaana loo sheegay in UN-ka ay qaateen mar waxaana loo sheegay inuu dhintay iyo mar waxaana loo sheegay sheeko kale dhowr mar ayaan shakinay oo wiilkan astaamihii aan anagu wiilkeena ku naqaanay aan ku aragnay laakiin nasiib daro Sharma Boy wuxuu ku soo koray nolol aan ahayn tii uu mudnaa sida ay eedadii qirayso hooyo Soomaaliyeed oo beesha majeerteen ka soo jeeda ayaa gacanta ku dhigtay oo korsatay oo xanaaneysay oo maanta levelka Muqdisho uu ka soo bilaabay ee maanta Mareykan uu ku joogo ilaahay ka sukow saameyn weyn ku lahayd hooyadaasi dabcan wiligii muusan soo bandhigin laakiin Sharma aad buu u jecel yahay sababtoo ah jacayl ayay siisay waalidnimo ayay tustay wax walba u baahan yahay way siin jirtay isagoo markasta sheegi jiray Sharma Boy in reer hooyadii ay yihiin reer koonfur galbeed oo xitaa hees uu ku soo amaanay taasi oo uusan ka carareen ama uusan diidaneyn Sharma Boy beesha baadicadde hadda waxay leeyihiin Sharmaarka Cabdi Naasir waxaan rabnaa DNA xitaa inaan ku kala baxno haddii qoyskan majeerteen iyagu ay leeyihiin ama wiilkan inuu noqdo wiilka iyagu ay la rabaan inuu u ahaado beesha baadicadde waa gugundhabe hawiye su'aalaha la weydiiyay maamadan waxaa ka mid ah war halkeed ku ogeedeen wiilka maxaa mar hor u soo raadin weyseen maxaad idaacadaha u timaadeen oo si gooni aad ula hadli weyseen ilaan qoys baa soo koriyay oo waqti badan soo geliyay qoyskii maxaad u raadin weyseen aabihii Kenya inuu jooga ayaa la sheegay Sharma Boy isla markaana uu isaguna arintan qiraal ku yahay laakiin aabihii codkiisa lama maqlin kulay laakiin gabadhan hadda hadlaysa been ayay sheegay ma dhihi karno waa gabar dabcan si daacad u hadlaysa iyaduna bal waxba yaan ka boobin sheekada ila daawo kata maami ma tahay Xamid ma tahay haye Subeer ma tahay ilaa waana hay ilaa wata ilaa wata maxaa dhaha Maxamed Cabdi ay awal la sii sheeg daa ilaa wata inta ya ka dhacay oo saaray محمد عبد الحسن علي داهر دين والله شرم باي wiilkeena inuu yahay aabihii dhalaa sheegay suu ku ogaaday ma kaala sheegaysay arrintaas mar uu iiga sheekeeyey wuxuu dhahay sheeg dagaalkii afar biloodkii markii oo sheeg maxamed laga soo noqday kabacdi afar biloodka oo isdagaalayeen afar biloodka almaas dagaalkii markuu maxamed kadib dhacay oo soo aboowe ee naagta isqabeen marka wuxuu yiri way ii imaatay isagoo dagaalka socdo dagaalka bilaabo rabo
waxay dhahdo dhalay Cabdicasiis oo wiil baan ku dhalay wiilaan dhalay ishag saas miyaa wud tagsaysay dharka tigto watay lacag uu siiyey way baxday marka xaafadooda aad Madiina tagnaayeen waan soo baxay yiri hal mar ku celi meeshaas maxaa tiri waa timid Cabdicasiis isagoo tagsa oo tagaalada socdaan yaa imaanaya Cabdicasiis oo imaanaya waxa uu maatay xaaskiisa Madiina xaaskiisa ay ahayd qabiilkee ahayd raxaween waaye xaaskiisa raxaween ahayd hay xaguu joogaa marka Cabdicasiis loo imaanayo Cabdicasiis gurigeena joogay gurigeena joogay leh tabka hoostiisa iskool dhaxtur agtiisa asaga intuu ka shaqeynaya marka deketab oo Soomaaliya hay waa sanadkaas ay waxa waa 93 ilaa 92 hay ko Soomaali fruud oo abaa u shaqeynaya odaga may aabay tikato ka dhigay walaalkeed way gabadha hadalka isku fahmay walaalka oo shaqeynaya samba markaas mooska la dhoofi jiray ma qaan la adino sheek mooska la dhoofi jiray daahir la wiil oo walaaladeed oo waxa jira oo ku hooy ku aaba ah oo hooyo la yiraahdo habar xabiib dhashay min aawada dhashay min aabaya dhalay waa maana fari iyo nadu walaalaha waa Soomaa maana walaashay iga weyn waaye aniga ciidin ku dhagana ha guriga kugu dhagana aan ku dhashay ku soco xasan ma taadiga maslax ma maqashuliga الله مصلح أو هبرنا أو إنتينا بشيء مصلحة إيه ولا مركا إيشاق ماشي صرت كان ويل كان تريسا معها جرنا أيه ليز قرابة هنا مركا ناكتر حاول أنت أو مركا أودا شعنك شربوي وايد متى وحلا صليق وحلا روضة أحمد علمي ما قال غير فاش فريامه واي مرجع عنق إلى إنك أساس سيفوه تدوس لمتى والله أبوه وحوا أما شكل لا توحيد أما شكته ما شكل معه والله شكل معه شكل حتى مودي لا عندي أنا ترواه تو يلا أنا ما أنت كتاب سامع قاعد تجلس قبلان كتاب سامع يكون غلط ظاهر وجهان حتى وشكو اوكي شو هيجي صدق لو رسين سنتك وشرب بودا شرط هو تعاش استحدا هذا شرب بودا تعاش تحصل ما يغسل ولدت صدق لو صدق كو سنه يا صدق كو شرب هذا ما يقول جرامك قياستين دايس الا صدق شو وشرا نقعون وي قعون ما دعي لما ما يجري واحد لازم قياستين شربوي ما والله دعايدي كمان نكان صدن يحوغا واجرا اوكي نكان اوكي marka naagtan kale raxaweynta ah oo ima biildii jirtay maxaa u geeyay habarada u tahay hooyadiisa ilma adeer la tahay islaantan laay maana waxa magaceedii naagtan soo korsato hooyo oo hata u dhaho ha wallahi warkaas dadka hor saar sheegay ya habarada u tahay hooyadiisa way dhimatay waxa la roodo Axmed Cali reer faash faryaam waxay isku yihiin hooyad intaan lahaay maxay ishag sarta ma taqaana ku taalo soobe ma adeerayihiin haye reer faash faryaam waa la yaqaanaa dad raxweyn hata soo qabatay haye gabadha waxa way dhimatay iyadoo umul raac cunugay ka tagtay iyadoo way dhimatay waa markii la qaxay haye wiidis haye oo sharba adugu ku egyahaba maanta dhan dadku waxay leeyihiin adugu ku ega ee tiisata farankay anaga isku soo qabteen faranka uma ekeedeen adugu ku egyahay ma sheekada waxa maqlay in hadda ka hor asoo xanaaqsan xasato markuu joojo dhaha bartay waay mar ay tii waxba ima siiyana wuxuu yiri hooyaday ma waa habartay hadalkaas waa sax hooyadiis waa dhimatay wiilkaas Ali raxmaan taa gabadha uu qabo saasi tiri mar waa habartiisa tiri taas waa sax halkaas waa sax okay marka muxuu cunuga intuu caan noqon odagan oo halka ah muxuu xiriiri waayay muxuu wax u tiri waayay wiilku wuxuu xiriiri aan kaaga sheekeena wiilku wuu wacay reerkii intaan raxmeen wuu wacay walaashe wuxuu arkay walaasheed habartiisu arkay hooyadiis la dhalatay oo wuxuu ku arkay Nairobi wiila lagu dhalay dhahday wiilka markuu uu raadiyay mar waxay dheen uu dhintay mar waxay dheen wiilkii ishag ee UN qaadatay mar waxyaalo badan iskugu tabamarsiiyay wiilka
marka maadaama la isku tabamarsiiyey oo sheeg waxaa la yiri sheeg markaas ka bacdi wuu waay wiilka hata iyaga hata dhexdooda waxay dhaheen wiilka waa raadinaysa Cabdicasiiso wiilkaagu waa shan boy may anaga xataa taa ogaaleen Soomaali ma wada tabarsan lahayn ba anaga kuriyo ku leh oo xoolo iska lahayn ba alxamdulillah ma tabarsan lahayn wallahi wiilkaas inta la markan ay qaris raxwin ay odaga haymaad marka odaga haymaado hawshaas sharmacta hadda nin oo adii oo loo sheego laga dhaxay telefonkiisa waa heesaaye waxay weydii meesha joogo inuu soo socday in kale numberka Kenya waa fiiri xitaa ninkan waxa waay ma taqaanaa xitaa cunug xuma laakiin cunuga dee asoo yar islaantana soo korsatay mana oga qof kale ma yaqaan wiilka qof soo korsato malaha wallahi meelo iska tabarsan jiro wallahi la cadin ma hatta ogaalaha wala ana ka shil had ka hor aroos oo xamrweyn aan joogno ee ka ruuxi intii maxaa isku tihiin abaayo waxban isku miniin aan dhaani kan taarood waa ana habiya ahaan ku dhahay hadda wala waa ana soo cili oo Cabdicasiis waa soo cili hadda radiga telefoonka cadeey waa ana تكتو هات كجوا صباح ودهاي في اسمه صقر عبد العزيز بن باصا hadduu qabo waay xaaskiisa wicina oo sabakaya ana waxay la tahay in biru fiican xilli fiican bala masaan biri lama helay ninka lama helay xaaskiisa noo sheegtay ninkan laakiin maxay tahay ilaa saakid dekada ku jira ma dekadu saxda asagu ninkan business howlu ku jira ninkan ma fadhiisto daahir diiliyo ba sidoo kale ninka guri ku xiran yahay daaro baabuur guri waa way fiicnaan lahayd baabuur Mareykanka wuxuu u diiday inuu shaqeysto every day shaqo ku laakiin salam boy isaga oo dayacana anaga soo aan wax soo tarnay oo aan soo garab qabanay idinka waxa la rabay baadacada wadii wiilkiina uu yahay inaan wax siisaan waagaas aan ku qaldantahay arintaas daahir hadda ay bahdiloosaay meelahaas uu dawarsan jiray leedahay hadda walaalkiisa yahay ma ogeen Soomaan anaga aqoon ma leeyahay anaga ma ogeen ka wada fadum maya laakiin bahdilaad waaye ceeb waa xasaas wallahi dilaad kalaay ilaa hadda wal adduunyo waa taasafiriya dadka ilmaha dhalay ilmaha dayacayo dhageysta waxa jira nin caana oo wariye ah ya abihi oo la yaqaano hebel leeyahay hooyadii ayuu ku inkiray kaamara baxbu ku yiri dabeeta abarna sabay ahayd walaalkeeda ugu abtirisay ninkii wuxuu noqday wariyaasha Soomaaliya wariyaha ugu caansan buu noqday annagoo meel galaba cadceeda farina aabiyo socdaan loo yimid inuu odaga dhalna waa loo sheegay waa ogyahay lama tirsana guri fillaah u gaday ya guri fillaah iyo u gaday markuu hadda dhimanayna dabaqo u dhisay hooyis dabaqo u dhisay aabihi dabaqo u dhisay war hadiiba oo sharan boy hadda saac u noqday maanta saf loo soo galay oo baadacadu ay leedihiin waxay tusaale u tahay ilmuhu markay yar yihiin hala xanaaneysto ilmuhu waxay noqon doonaan lama oga cunugu markuu yar yahay la rabaa in ma taqaanaa micno loo yeelo oo waxaa la rabaa inaad kuwa sabadiday la garab qabto halkaan maalin kasta ciyaalan ku qaabilnaa waxa fiican cunugu markuu yar yahay cunugu markaas waxa la taro hadda ninkan was dabaray wuxuu soo maraba wuu laandheereeyey melihiisu ka raabay isaa jawgiisa qaatay inkastoo xasatoob leedu abaal u galay ninkaas qatar ka dhigay xasatoob moog dad badan soo saaray fartuun balbalaarka waxaa keliyaha weyn asaa soo saaray arkaysa qof uusan soo saarin cunugaas ma jirto asaa u soo kala kiciy waxaa oo dhan marka asaga xariiftamay isagaa maraykan tagay xaas buu guursaday xaas buu yeeshay aab buu noqday maanta waxaan asaga waxay ku tahay oo hadda aad samaynaysiin ceebay ku tahay waxaa la qaatay inaad si hoos ula hadashaan oo dhahdaan isu sheegtaan war haslaantaa kumay dhalin waa habarirtaa war heblaayo hebel baa ku dhashay war aabbaha waa kan inaad hoos u xalisataan daahir oo mid makaa dhihi kara taas reerkan si walba ay u soo xalmala hadda ugu dambeysay 3 bilood ugu dambeysay Google baa la fadhiyay Google gaalkacay la soo fariistay waa lagu soo kala dhamaaday waa lagu soo kala tagay Muqdisho Google la fariistay Mombasa Google la fariistay cidi ma jeerteen cidi waxay leeyihiin ninka waa nin 30 jir order raadsada ninkana wuxuu dhahay mar raba diyadan in laga qaado cidan ma aqaana buu taagan yahay ma ana ka soo dhamay dii oga ogolaana waa intaas laakiin hadda ma ogta waxaan asaga ceeb ku tahay waa lagu caaya moogtaas moogti
soomaali caydad yaa u joojina meeqaasina wax laga sheegaya daahir ilaahay ka jiro magac leh waay maasha allah daahiro soo moogid caayadu waa laba caan roojis laba jeer leh hore ka dhamaanaya warun horta shan bood maqlay waxaan leeyahay hees raaba oo tii ugu xumee soo samay waxaad ka bilowdaa kuwiisooso iyo jiista ku garaac daahir cala